In ka badan 2,000 oo bilyaneer ayaa caalamka ku nool oo qaar ka mid ah ay aasaaseen shirkadaha ugu caansan adduunka. Haddaba waxaan kula wadaagayaa 7 talo oo ay bixinayaan qaar ka mid ah bilyaneerada caalamka oo ku saabsan sida aad ku heli karto hanti badan. Haddaba haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. Waxaan soo gudbinnaa warbixinno la xiriira arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha. Haddii aad horay noola joogtayna, like saar, asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanid. 1. Maalgelinta waxaa la sameeyaa xilli uu xaalku xun yahay. Tani waa oraah caan ah. Waxaa laga hayaa Baron Rothschild. Taladan dhaqaale waxay tilmaamaysaa marka ay ka jirto suuqa, cabsi, walaac iyo hubanti la'aan oo ay dadku hantidooda iibinayaan. Haddaad adigu u bareerto khatarta oo aad maalgelin u samayso ganacsiyada maalgelinta degdegga ugu baahan, waxaad noqonaysaa mid hela faa'iido badan markuu suuqu soo kabasho sameeyo. 2. Kaydintu waxay kaa dhigaysaa faqiir. Maalgelintuna waxay kaa dhigaysaa hantiile. Waa sax inaad wax yar qarash garayso, waxna aad kaydsato, laakiin kaydin keliya kuguma filna. Waa inay lacagtu shaqayso oo ay soo saarto lacag kale. Haddaba, inaad lacag kaydiso adigoon maalgelin samaynaynin ma aha hab wanaagsan oo aad hantidaada ku korrin kartid. Aakhirkiina hantidaas aad kaydisay waxay u dambayn doontaa inaad qarash garayso, kadibna waxaad noqonaysaa qof gacmo maran. Dhanka kale, maalgelintu waxay kordhinaysaa hantidaada. Qofka taladan bixinaya waa Warren Buffett oo ah maalgeliye caan ah, sidoo kalena waa madaxa shirkadda Berkshire Hathaway. Wuxuu sameeyey maalgelintiisii ugu horreysay isagoo 11 jir ah. 3. Hantiilayaashu waxay iibsadaan wax hantidooda kordhinaya, fuqarraduna waxay iibsadaan wax hantidooda yaraynaya. Dadka hantida leh hantidooda kor ayay u qaadaan, iyagoo iibsanaya wax hanti soo gelinaya. Tusaale, inay iibsadaan hanti maguurto ah, kadibna ay kiraystaan, halkaasna waxay ka helayaan hanti. Sidoo kale inay saami ka iibsadaan shirkad iyo wixii la mid ah. Halka dadka fuqarrada ay ku qarash garayaan hantidooda waxyaabo aan hanti soo gelinaynin oo keliya jeebkooda lacag ka saaraya. Taladan waxaa laga hayaa Mark Cuban oo ah bilyaneer Maraykan u dhashay. 4. Hantidaada hal meel ha wada gelin. Tani waa talo kaaga digaysa inaad hantidaada hal meel wada gelisid. Hadduu khasaaro yimaado, waxaad halis ugu jirtaa inaad hantidaada weyso gebi ahaanba. Taladan waxay xoojinaysaa inay hantidaadu ganacsiyo kala duwan ku kala jirto, taas oo yaraynaysa khasaaraha ku soo gaari kara. Fikraddan waxaa aaminsan Richard Branson oo ah ganacsade Ingiriis u dhashay, ahna aasaasaha Virgin Group, kaas oo hanti badan ku helay ganacsiyo kala duwan hanti uu gashaday. 5. Hanti badan ayaad ku helaysaa inaad daboosho baahida bulshada. Inaad raadiso baahida bulshadu ay qabto oo ay u baahan tahay in la daboolo, kadibna aad keento adeeg ama badeeco aad ku daboolaysid baahidaas, waxay keenaysaa inaad noqoto hantiile. Marka hore waa inaad noqotaa qof meel fog wax ka arka, hal abuurna leh, si aad u keento wax daboolaya baahida bulshada. Kadibna waxaad ka heli kartaa faa'iido badan. Taladan waxaa laga hayaa Naval Ravikant oo ah ganacsade Indiya u dhashay. 6. Shaqaalenimo hantiile kuma noqon kartid. Mushaarka aad ka hesho wakhtigaaga oo aad kiraysatay wuxuu kuu sahlayaa inaad awood u yeelato bixinta qarashaadka lagaa rabo. Haddii shaqada lagaa ceeriyo ama ganacsigu uu burburo, waxaa kugu adkaanaysa inaad bixiso qarashaadka lagaa rabo, maxaa yeelay markii hore waxaad ku tiirsaneed mushaarka shaqada lagaa siiyo. Mid ka mid a sababaha aad ku heli karto xornimo dhaqaale waa inaad ganacsi abuurataa ama ganacsi aad maal gashataa. Taladan waxaa laga hayaa Naval Ravikant oo ah ganacsade Indiya u dhashay. 7. Samayso meelo badan uu dakhli kaa soo galo. Taladan waxaa laga hayaa Oprah Winfrey oo ah gabar lagu yaqaano inay qabato bandhigyada, gaar ahaan Oprah Winfrey Show, kaas oo socday muddo 25 sano ah. Oprah ayaa samaysatay meelo badan uu dakhli ka soo galo, waxayna ka mid noqotay haweenka ugu hantida badan caalamka. Haddaba haddii aad leedahay hal il uu dakhli kaa soo galo, fursadda aad ku noqon karto hantiile aad bay u yar tahay. Haddaba taladee ayaa aad ku anfacaysa adiga? Haddaad ka heshay muuqaalkan, like saar si uu asxaab badan u gaaro. Mahadsanid.